Assalaamu calaykum. Daawade ku soo dhawow barta YouTube-ka ee Abraham Show oo aad kala socon doontaan macluumaadyo la xiriira arrimaha sirdoonka, dhaqaalaha, caafimaadka iyo arrimaha bulshada. Sidoo kale waxaan halkaan idinkugu soo gudbin doonaa oo aan baaritaano ku samayn doonaa dhammaan waxyaabaha aad u baahataan si aad u heshaan xogaha dheeraadka ee aad u baahan tihiin. Muuqaalkan ugu horeeya ayaan idin soo gudbinayno waxa uu ku saabsan yahay sida ay u shaqeyso siyaasadda arrimaha dibadda iyo sirdoonka Mareykanka. Waana qaybta koowaad ee sheeko tixane inoo ahaan doonta haddii uu Allah awood Ilaahay u raali ka noqdo. Waa macallimad ka dhigta jaamacadda Virginia ee waddanka Mareykanka maadada Political Science. Intaan shaqada aadin subax iyada oo la quraacanaysa qoyskeeda oo ka kooban 2 gabdhood, wiil iyo saygeeda, ayaa la soo hareereynaya gurigeeda. Waa baabuur 30 ka badan oo ka timid aqalka cad ee waddanka Mareykanka. Waa booskeedii hore oo madax ugu ahaa mar hay-adda sirdoonka ee waddanka Mareykanka ee CIA, laakiin hadda ah madaxweynaha dalka Mareykanka. La yaab ay ku noqonaysaa inay dib u aragto muddo kadib booskeedii hore. Haddana la yaab kale ay ku noqonaysaa in madaxweynaha Mareykanka uu gurigeeda ugu imaado iyadoon wax xil ahayn. Waxaa ka sii yaab badan arrintuu ugu imaanayo. Wuxuu ku leeyahay, waxaan rabaa inaad ila shaqayso kuna soo biirto xukuumadeyda. Waxaan rabaa inaan kaa dhigo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka. Wayna haysaa marka hore, matag ayaana qabanaya. Iyadoo shigshigaysa ay weydiinaysa, laakiin maxaad igu dooratay? Wuxuu leeyahay, 12 sano ayaad ila shaqaynaysay, waxaan aqaan waxaad qaban karto, sidaad u qaban karto iyo sidaad u fikirto. Waxaan aqaan waxaad ku salayso miisaanka go'aankaaga. Waxaan aqaan inaadan caadifad aqoon, aqoon. Waxaan aqaan inaad leedahay maskax taxliilin karta arrimaha murugsan. Wuu ka tagayaa isagoo kula dardaarmaya inaysan qayb ka noqon in uu guuldareysto. Sidaas darteed ay aqbasho codsigiisa. Wuxuu kaloo xusuusinayaa inuusan no ama maya jawaab ahaan u qaadan doonin. Waa halka ay ka bilaabanayso sheekada tixnaa ay noo ahaan doonta hadduu Alle idmo ee filimka magaciisu yahay Madam Secretary ee ku saabsan Hillary Clinton. Waqtigii ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka iyo siday u maareysay dhacdooyinkii qalabsanaa ee Benghazi, Yemen, Suuriya iyo Iiraan, iyo sidoo kale qoyskeeda maadaama ay hooyo ahayd. Aad bay u qurux badan tahay marka aad dhisayso koox kuna salaynayso doorashada cidda qayb ka noqonaysa, kartideeda iyo awoodeeda. Qofka aad shaqada siinaysan oo uusan u baahnayn isna shaqo iyo mushaar ee uu hadafkiisu u yahay in guul iyo taariikh la wada sameeyo. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybta koowaad ee warbixintan. Inta aynu ku kulmi doono qaybtan tan xigta. Sidaas iyo nabadgelyo.